دكتور أنا معروف وين نقوله dad badan oo saaciideyno waan la kulmo wiilasha kalena waan asaga la mid anaga waxaan dhihi lahay horta bedel hadda haddaas bedel dhacen wax aan waxay soo doctorka iyo cidda ay noo soo sheegad wax ka soconaada ma leh beenaanu isugu sheegayna hadda meeshaan beenna meel tegi maysa haddii cidnimada hadda nogula wacay ay ka ra'yi bixi ay tahay ciddi reabe axmed xasan aniga isoo wakiilasha afkoodaan ku hadlaa afkooda markaan ku hadlaa fay haddiis dhaha ninkoo aan soo reebn haddaba haddaan ka hor waa la dhahay waana la qaadan waay oo la qaata oo doctor xasan la soo qaado haddaba odayaalku waa fadhiyaani animigoo horkaboodaan u nahan aan leh wax shaki ku jirona maaha maal iyo xoog iyo xandhaba iskugu darayna wehliye waa u tagay waa hadlay sidaas ogtiina kollay dadaa qabo maanta xabiibaan dana maxay meeshaa u taaganta waxaa meeshaa u taagayna bahdiyana xasan waxaa u malaynaa doctor xasan waxaan u malaynaa markii la dhaha abtir awow ayaas nooyo haddaas bahdi aas u yahay awow fay maanta haddaas noo yeera cid ka maqnaani karta ma jirto ninkii qabri ku jiro mooge nin kaloo maanta ka maqnaani kara ma laha haddaa wiilasha walaalaha inoo taagan maanta inay imaadaana ku fiicneed walaalow iga heerna ceeb ma ahan walaalow wax baan rabaana ceeb ma aha walaalkayn shalay faataxa qeyr qabto waa qaate laakiin baasha inay soconi laada afkeedan xoogo aas yara gaabtay markaas arkay casbadhay koley amaaba aday lagaa xishoodaa wax aan rabaana ceeb ma aha marka maadaama os walaalkeen maanta asadhay kursigaan rabaa horta waxaan u malaynaa annaga markaan aana dumarkay dhakhtarka annaga waa qofaas aqaanin maba jira u malaynaa gabar ah oo dhakhtarkiisa ugu tagtay markaan waxaan u malaynaa dhagtaa daasbadhah gabdhaha kelixay dhisaan reer wajeer amuuba kursiga soo geli lahay qabiilaan nahaneba soomaali dhanba because maxaa la dhahaa diinta islaamka waxaa la dhahay gabarta maxaa la dhahay jirkeeda ninkeeda iyo walaalkeeda iyo waxsaas hataa walaalkeeda hadaa laga qarna laakiin dhakhtarka ilaahay wuu noo fasaxay dhakhtarka waxaa u malaynayaa inta gabar oo soo daaway guryaheeda waa ku firin ijiya ajuuraan dagoodii hadaa la dhah maasha allah taas waa aqoon weyn oo saakii qof la aqaan weynay ma ah waa qof oo waxaa la dhahaa da-ah da'dan ogow waa yeelnimo maaha waa aqli da'da magii la dhah anaa haddaan da-an joogaa laakiin da'da waa numberka aqli ma qabaa waa ninkaan aqliyaas qabaa madaxaas ahay dawladda u soo shaqeeyey NHIF ilaahay mahad kale Kenya ninka NHIF keena waa iskuulaha maanta ninka secondary ku jiro cunugiisa daawo dhamaara free ah looga dhigay ninkii waxaas keena oo Kenya dhabaarka aqli badan maasha Allah maanta kursi lama siin weynay walaaleen ka yarna maanta waa ka reeban karnaa hadaan nahne bahday warwiilkan waa awowgiin warwiilkan waa in dhalay kursiga ayaga xaq ay u leeyihiin waa soo wala shaqeeyeen maanta waa u loolami karaan oo sida isu soo bixiyeen laakiin still waa la qabsanaynaa walaalayaal oo kala xirayaan leenahay bahdan dadka isku laabina dadka waxa waaye dhaqanka markii loo kaca waa ka weyn yahay waa xurmo waa ka yar yahay inuu xurmo laakiin talada qofku weyn baa loo dhiibi jiray marka waxaan in leenahay dhakhtarka waxa laga laabta meerkanane dhakhtarkan gacanta ayaan qabanaynaa walaalaheena ayaan la doonaynaa dadka la doona ayaan galaa fataxa ayaga ayaan umaraynaa haddaas bashalay aas ka fiicnay bargana ayaga
ayagana waa inay ka fiicnaadaan. laakiin maanta waxaan nala simin keetigaan aan u socono keena maaha mujtamacaan ilaahay oo dhan baa u dhexeeya iyo oo nala simin maanta tolow war meesha waa culays badantee saddexdeena wiil wanaagga waa koognaye yaan u malaynaynaa inay tobankoodii dugoodiya ayaa u nala qaadi karta oo saddex musharaxadoo ka taagan inay adugu tanaasuli karta yaan u malaynaynaa intaa keliya aan ku soo qaadano oo kii noo muuqdo bannaanka imaaday waxaan u malaynaa haddana ani dhogto waxaan ugu xigsana mama jiraan tarka siduu sheegay in sida biografigiisa taariikhdiisa loola sheegay dad qaarkood waxay leeyihiin businessman waa nin beexshare dr xasan beexshare maaha waa nin institution kasta oo kenya ay leedahay oo caafimaad ku xisaabsan soo maray muxuu ka soo shaqeeyey oo shaqadiisa ugu horreysa aad ka soo bilaabay MOH Kangundo Machakos County wixii ka qabtay waa la ogyahay waa ka soo baxay muxuu imaaday Kenyatta National Hospital taariikhda Kenyatta National Hospital wuxuu hagaajiyay waa la ogyahay Kenyatta National Hospital markuu aaday waa laga soo saaray muxuu imaaday Pumwani ayadoo ma arkinoo 10,000 sanadkii naagaha markay imaadaan 1,000 iyo xoogoo ka dhimanay carruurtana ay dhimanayaan waqtigiisa markuu imaaday Pumwani National Hospital maternity waa 0 death I know ilaahay uu garab galay meesha muxuu ka helay bilad oo madaxweyne kasta maaha waxa bixiyay Kibaki yaa bixiyay Kibaki waa the most honorable president of soo marnay oo waddanka horumarkeed waa Kibaki ninka Kibaki of medal C annagana medal hold on annagana medal waa inaan siin medalkaasaytu maxaan ku siinaynaa gabanaha aad noo soo doontay inaan ma arkino ku sharafna maadaama uu leeyahay khibrad dheer oo gabana managerialka oo ma arkino institution kasta buu ka soo qaaday dhaktari xasan maxamed aadan iyo bahda hoose oo iska dhashay oo gogoshaan fidisay waa ismahadsantiin waa noo yeerateen waanay soo cajiibnay aniga dhakhtarka naftankiisa imbason asaasiin ii soo diray waana nin aan aad saaxiib u dhahno oon jeclahay oo xishmood weyn naga dhacaysa waana soo cajiibnay waxaan ku dhahay ugaas doctor xasan maxamed iyo xasan wehliye khaalid iyo adiga oon wada hadlin oon maslaxo ka helin oon ciddaan u lixin kursi ma jiro haddaas idinka heshii waysiin ood maslaxo keeni waysiin haddaas faay idiin talilin oo dad maskaxda ka shaqaysiiya oo caaqiliin ah oo odayaal ah oo qabiilkan unaxa aan la helin kursi ma jiro bujurtoda qabiilkan aas ku dhaqmaa waxaa sheegay aabanuur cabdi aa sheegay waana cimrigeedaad leeyahay aqalibadeedaad leeyahay faayaa soo dhaqay xaajo badanaas u joogay wax badanaa soo teli sidaas qabiilkaan ku dhaqmi lahay waa sidaas duqu sheegay waa inaan wada tashanna waa inaan isu samarna waxaa yeela tahay saddexdii limoo musharaxiinta ah doctor xasan ugaas iyo xasan wehliye walaalayaal oo qabiilkaan u dhaxa odayaasha ana aan ku jiro oo aabbe nuur ku jiro oo inta meeshaan imaada ay ku jirto walaalayaal oo qabiilkaan u dhaxla dadka la soo doortay oo MCA-yaalka ah oo mas-uuliyadda haya qabiilkaan u dhaxa Soomaalida kala saankeeda aan soo dhigayso soo ogaaday siyaasadda xasan ay soo baxday inaan kala sababtana waa sheega bigifay laga taga wajeer Soomaaliland ma isku leh
xasan inaas line-upka soomaalida aas haysta ayay soo baxday marka waxay ila tahay hataa xoolaha markay weydihiin oy fadhiistaan neefka isqaado kastoo saacadi la u baahani neef xirka hoos lay kaliyihiin neefka isqaadaa la saacideeyaa ninkii line-up soomaalida kale ay u muuqato ninkaas uslaanisa soo qaadee annaka inta dagoodiyoo taaganaanba fartiinu faraa ninku sugaa inaan saacidayna ila tahay microphone aan qabto waa iko siyaasadan waa indhiindhaynay wiilishaan socda haddaan fiirina waa walaalaasheen ikon saasay wal rabaan wiilishaan waxa iisi celi oo nin kastaba jago waa ilaa iisi celot waa fay dhexdiis maalintii ugaas la reebay oo maxaa cabdi laga reebay hadda ugaas la wada oo jaga la sii maanta faataxa hadda loo mar waa qaadan lahay ninkii geeda lagu xiri joogaa la dhahay usoo cilla sadana imaaday dhakhtarku waa kusoo darsamay xasan wiili waa tagay laakiin ani waxaan in leeyahay wajeer dhib badana ka jira ciyaartan dhaafan mid u horeysa intaanu barga cid oomeen joogta nin ay lacag ka maqneen ma laha waa la dhacan yahay yaa lacagta idaayota cid uu keeni karo fay maanta uu keeni kara mid dugodi uu keeni kara ama soomaali weyn uu keeni kara ana waxaan u arkaa doctor xasan waa kuwaasaba ninkan ma gaajoono ninkan nin gaajoon maaha waa haddan ka horaan warsaday waxaa dahay ani maanta uma baahni lacagtada countida intiin wajeer wax ka qabtoon istaalka wax ka qabtaan rabaa meeqaa bilood ka qaban kartaa dhahay istaalka waxaa dahay 3 bilood aan liisiyaa dhahay wajeer 3 bilood aan liisiyaa dhibki jiran wajeerna waxaa waaye waa kaas